kulankan oo lagu soo dhaweynaya madaxweynihii hore ee Ximin iyo Xeeb waxaa soo agaasimay dhalinyaro isxaqaantay waxaana inta kulanku uu soconayay la soo bandhigay sida loogu faraxsan yahay in mar kale xorriyadiisa uu dib u helo madaxweyne Tiicay. kulankan waxaa ka soo qayb galay xildhibaano golaha shacabka ka socday iyo aqalka sare waxaa kaloo joogay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya oo dhammaantood iyagu garab istaag u muujinayay madaxweynaha xorriyadda dib u helay Maxamed Aadan Tiicay. bilowga kulanka waxaa soo dhaweeyay dadkii kulankan ka qayb galay Maxamed Qaasim oo ka mid ah dhalinyarada kulankan soo agaasintay. dhalinyaro Soomaaliyeed oo istilqaantay jecelaysatana inay soo dhaweeyaan walaalkeen Maxamed Abdullaahi Aadan Tiicay. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo uu ka mid yahay Mahad Salaad ayaa goobtan ka hadlay waxaana xildhibaan Mahad Salaad uu sheegay in Galmudug weli ay u baahan tahay madaxweyne Tiicay oo iminka Muqdisho lagu soo dhaweeyay. madaxweyne waxaan rabaa inaan ku yiraahdo soo dhawow deegaankaagi weeye sidii saaxiibadii hore ka dhawaajiyeen Galmudug waa ku baahan tahay aniga intii aad madaxweynaha ka ahayd xildhibaanadii tagayaan ka mid ahaa sanadkii 2013 madaxweyne Tiicay isagoo Ximin iyo Xeeb ka madaxweyne ayaan tagay soo dhaweyn aad u qiimo badan nugula sameeyay wafdigii ra'iisul wasaare Saaxiibaan la socday waan dareemi karnaa xilligaas duruuftii meeshaas ka jirtay iyo sida loo aasaasay maamulkii meeshaas ka jiray iyo dadku say ugu diirsadeen runtii waxaa aad loo mahadiyay ahayd marka baahidii shalay Galmudug ku qabtay maanta ku qabtaa waxaan ku leenahay marka ku soo dhawow bilowga sugaan xisaabta ku darso. aqalka sare oo mas'uuliyiin kala duwan halkan ay u joogeen xildhibaan Cabdi Qaybdiid oo ah gudoomiyaha guddiga dastuurka oo isaguna hadlay waxa uu ka sheekaynayaa dhibaatada xabsigu leeyahay isagoo sheegaya in xabsi 4 maalmood oo dalka dibadiisa ku soo qaatay xanuunka 4 sano ee madaxweyne Tiicayna uu yahay mid u baahnaa dulqaad oo uu iminka ka soo dhex maquurtay. aad xirnay dibadda xanuunkeeda aniga 4 habeen baa laygu xiray meesha la yiraahdo Sweden anoo wafti kamida ayaa laygu dhagay war xabsigu xanuun badana waxa weeye wafti baanu ahayn ciidanka waxaan kamid ahaa taliyaha booliiska gobolka Banaadir markaa ku magacaabay waa laygu dhago waxa la ninkan xagga intii laga laabto qaraabadu waa iska badnayd waxa la ninkii dadka soo dhameeyay caawa galno argaala godno ugu jiray garweynta noo keen. gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare Abshir Maxamed Axmed Abshir Bukhari oo isaguna halkan ka hadlay waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay isku tiirsanaadaan isagoo dhanka kale yiri waa sharci darro xabsigii loo geystay madaxweynihii hore ee Ximin iyo Xeeb Maxamed Aadan Tiicay. kaliyaani waxaan rabaa inaan halkan ku sheego in xariga 4 sano ah ee uu ku jiray mudane Tiicay uu ahaa sharci darro afduub markii sababta qaabka lagu xiro wuxuu ahaa waxa loo yaqaan afduub waa la afduubay Muqdisho Nairobi Brussels afduub waxa yaab leh laba arrin waxa lagu eedeynay oo lagu afduubay waa wixii muddo uu ka shaqeynayay oo la garanayay oo dad marti Soomaali oo wax badan Soomaali u qabanayay oo si gardarro ah loo afduubtay deegaanadaas loogu afduubay inuu isaga soo dacay oo ka shaqeeyay waqti badan geliyay in the record oo qaarkood ay memories-koodii ka qoreen bugaagtoodii ay hadeertan suuqyada yaalaan. labo finally siideyntiisii waxaa lagu sheegay wax dambi ma laha marka waxaan meeshaas waxaa ka muuqata dambi lagu daray dambi markii horena afduub ku bilowday. ugu dambeyn munaasabadan waxaa lagu soo afmeeray hadal uu ka jeediyay goobta madaxweynihii la soo dhaweynayay ee Ximin iyo Xeeb Maxamed Aadan Tiicay waxaana uu sheegay in si khaldan loola dhaqmay xilligii la xirayay inta xabsiga uu ku jiray waxaana uu sheegayaa in cadaalad darro ay ka jirto wadankii lagu xiray ee Belgiumka gaar ahaan Brussels. maan arag weligay dalka sharci xun ka musuqmaasuq badan ka cadaalad daran weligay maan arag waa dalka kaliya ay adduunku ka dhici karto xataa hal yiraahdo meelaha maaragtay ay xukuumaan dadka kale taliska ah dalka kaliya ka dhici karto qofka in la yiraahdo asoon dambi lahayn waa iska xiranaynaa waxaan haysan karnaa intaan rabno adduunka kale qaacido waxa ka jirta
qof walba waa bilaa dambiile ilaa dambi lagu soo cadeeyo laakiin ayaga qaacidadoodu waxay tahay qof walba waa dambiile ilaa dambi la-aan lagu soo cadeeyo adduunkii kale oo dhan ay khilaafeen haddana saasay tahay alxamdulilah ilaah baa mahad iskale igu dhiirageliyey inaan ku qanco qadartiisii dhacday inaan ku qanco aanan yaqiinsado waxaan wax qoranay ahaayeen inkastoo maalmihii ugu horreysay aan isqanjuruufan aan dhahay tiicay maa tahay ma nooshahay meeshaan ma joogi kartaa ujeedka munaasabadan ayaa ahayd in garab istaag iyo hambalyo loo muujiyo madaxweynihii ximin iyo xeeb maxamed aadan tiicey oo 4 sano ku xirnaa xabsi ku yaala Belgiumka iyadoo lagu eedeeyay in burcadbadeed uu ka tirsanaa sidaas oo kalena markii la soo deynayay waxa la sheegay in uusan wax dambiye lahayn Calaadan Muumin Goobjoog Muqdisho.